السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أدبون سلام يا أصحابتك وحنا channel كينا ورسمة بلا runtii in badan baynu kala maqnayn wayna wax macluumaad ku wadaagay bartan maanta waxaan noo hayaa video kooban oo ku saabsan sidii qofku internetka uga shaqeysan lahaa ama uu lacag uga sameyn lahaa qaabkaas oo runtii aad iyo aad u fudud isla markaana aan soo xulnay qofkana aan kharash badan iyo waqti badan ka qaadanaynin laakiin uu fahmi karayo si fiican u bilaabi karayo qodobadaas baynu si fiican mid u taaban doonaa haddaan kugu horreeya ka bilaabo waxa weeyaan barnaamijkan la yidhahdo Upwork waa barnaamij ama waa platform caalamiya oo lagu wadaago shaqooyinka qof kasta xirfad uu yaqaano ayuu ka shaqeysanaya tusaale ahaan waxa uu horeeyay graphic design qofkii graphic design yaqaana graphics-ka ama muxuu ahaayay content-ka la diyaarinayo qofku ku iibinayo alaabtiisa amba muxuu ahaa qofkii ku promote gareynaya ganacsigiisa ama qofkii wax barasho soo bandhigaya qofkii content-ka diyaariyo marka taas buu qofku cid u baahan diyaarinayaa si fudud isaguna lacag u qaadanaya haddii qofku kolba qof xirfad uu yaqaan ku shaqeysanaya customer care iyaduna meesha taalo qofku customer care buu shaqada u shaqeynaya qaab online customer care qof lacag u qaadanaya turjumaada luqadaha Soomaali ama English ama Carabi kolba qofku sidoo yaqaano ayuu isku turjumayaa web design qofku sameyn karaa oo websites-kii qofku design gareyn karaa oo loo design gareynaya shirkado amba cidii kolba dee shakhsiyada u baahan design-ka dharka ayaa la sheeganaysaa shirkadaha dharka soo saara lacag bay kugu siinayaan social media marketing baad sameynaysaa data entry baad sameynaysaa data meel ku kuraysaa macaamiishaad caawinaysaa waxaas oo dhan sii wadaysaa okay qaybta labaad waa YouTube maanta waa qaybta ugu weyn una ballaaran ee cid walba lacag ka sameyn karto si wuxuu kaaga baahan yahay kaliya inaad gaadho 1000 subscribers iyo 4,000 oo saacadood oo daawasho mustaqil cisho ugu dambeeyay kaliya kaga baahan yahay marka channel baad sameysanaysaa channel kasta loo sameysto iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad ka bilowdo video kale ayaan ka diyaarin doonaa qaybta saddexaad aad ku sii socono idin wax weeyaan blogging waa qaab qofku qoraal u sameynayo ama article qorayo uu ku daawacayo website ama isaga website sameysanay qofku labadaba uu sameyn karaa website isagu leeyahay uu ku daawacan karaa ama website qof kale leeyahay amba institution amba warkiis oo kale uu ku daawaci kartaa marka isagana waxa laga siinayaa payment mid kasta oo soo eegta amba per click waxa lagu pay gareynaya isagana kulba number qof ee halkaas u mara isaguna waa mid aad iyo aad fudud oo qof xirfadiisa uu isticmaalaya wuxuu buu qorayaa computer ma qofku u baahan yahay marka inta wax soo raacaya haddii qofku u baahan yahay website uu leeyahay uu sameysto waxa weeyaan xirfad gaar ah in qofku yeesho noqonaysaa waan ka caawin doonaa qofkii u baahan inuu website sameysto qaybta afraad waxay noqonaysaa content creators waxa weeyaan in qofku sameeyo ama uu diyaariyo designs graphic design isla markaana uu ka iibiyo shirkadaha iibiya footageska ama videoska iibiya ama sawirada ama audioska ka iibiya muxuu ahaa ganacsiga ka iibiya marka qofkuna wuxuu sameeyaa designada isagoo markaa u shaqeynaya dadkaas waxa kale qofku sameyn karaa website ayuu update gareynaya website-ka shirkad baa leh ama shakhsi baa leh dibadda markaa lacag ku qaadanaya qofku sidoo kale sameyn karaa digital marketing ku sameyn karaa page ay leedahay cidii si lacag ugu qaato qaabka shanaad oo waxaa loo yaqaano affiliate marketing wax weeyaan qofka Facebook fiican leh ama social media aad active-ka uga wuxuu sameyn karaa alaabaha ayuu linkiyadii oo dadku u soo bandhigaya si ay u iibsadaan marka shirkadii ay ka iibsaday alaabtaasi wuxuu qofku ku qaadanaya commission qof kasta oo aad keentay oo linkigaaga soo raacday waayo dad badan ku dhageysanaya ama dad badan ku daawanaya alaabtaadii bay iibsadeen linkii raaceen alaabtii bay iibsadeen wax weeyaan qof kasta oo alaabta iibsada shirkadda wax ku siinaysa commission marka isla affiliate marketing baa la yiraahdaa isagoo faahfaahsan video dambe aynu ka hadli doonaa stepka lixaad wuxuu noqonayaa dropshipping waa qaab qofku uu u iibinayo alaab isagoo aan haynin shirkad baad u adeegaysaa amba company marka alaabtaad iibinayso waxaad ugu talagashay inaad isku xidho qofkii customer-ka ahaa iyo shirkadda alaabtaasi marka delivery-ga iyo qaadista iyo wax oo dhan ba shirkadda sameynaysa adigu just qofka customer-ka ayuu madkeenaysaa qaabka ugu dambeeya wax weeyaan ama qodobka 7aad ee ugu dambeeya wuxuu noqonayaa tutoring ama teaching inuu qofku aqoontiisa la wadaago caalamka waxa weeyaan kaliya ma aha in qofku class uu dhigo laakiin qofku wuxuu sameyn karaa online buu ku wadaagi karaa
adduunka cid kasta oo xirfadan isagu garanayo expert ku yahay u baahan oo ka faa'iideysanaysa marka language-ka isticmaalayna waa language-ka English-ka ee standard-ka platform-ka tusaale ahaan halkaa hoose aan ku sheegnay Skillshare idhaahdo ayuu qofku gelayaa linkigiisa hoosta ayaan soo dhigi doonaa qofku wuu account ku samaysanayaa uu soo geliyo lectureska iyo aqoontiisa dina saas ayuu kula wadaagayaa kabacdi markaa cid kasta oo classkiisa soo xaadirta wax weeyaan lacag baa lagu pay garanayaa oo subscription buu qofku ku qaadanaya aad ma mahadsantihiin waa inoo video dambe sawa